saacadihii la soo dhaafay waxaa xaaladiisa caafimaad si weyn looga dayrinayay fanaanka cabdi jaamac caabi cabdiqabuujiye oo ka mid ah fanaaninta waaweyn ee Soomaalida waxaana saameeyay xanuunka safmarka ee COVID-19 iyadoo muddo dhowr casho ah xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay cusbital ku yaala Norway 24 saacadood la soo dhaafayna waxaa si weyn u dhaxqaaday baraha bulshadu ay ku xidhiidho muuqaal muujinaya xaaladda caafimaad darro ee la soo diristay fanaanka haddaba waxaa goor dhaweyd aan khadka telefoonka kula xidhiidhay isla markaasina aan waraysi kala yeeshay bal xaaladda fanaanka ee haatan fanaanka Maxamuud Xuseen Maxamed Sulub halwad oo isagu ka mid ah qoyska iyo ehelada fanaanka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaal cabdiqani baylood adiga iyo bahda bulsha TV ba waan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu walaalo hadii aan warbixin idinka siiyo cabdi jaamac caabi cabdiqabuujiye sida aad la socotaan wiigii ugu dambeysay waxa haleelay xanuunka safmarka ee dunida saameeyay ee COVID-19 waxa aana la geeyay ama la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Oslo wadanka Norway halkaas uu degan yahay halkaas uu dhakhtarka ku jiray xaaladiisu caadi bay ahayd wuu hadlayay wuu sheekeynayay wuu iska warbixinayay marka lala hadlo ama aanu la hadalaba mar way jirtaa walaalo xaaladda naqaska ay culays soo haleelayay oo culays soo food saarayay oo marra ay hoos u dhacaysay marra ay kor u kacaysay haddana xaaladiisa iyo hadalkiisa iyo sheekadiisu caadi bay ahayd marka laga reebo muuqaal shalayto ka baxay isaga oo baraha bulshada ku faafay muuqaalkaas oo mujtamaca ummadda Soomaaliyeed ay aad uga naxeen iminkana walaalo xaaladiisii ugu dambeysay way wanaagsan tahay way ka soo reynaysaa waxa aanu u baahan yahay walaalo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto wuxuu uga baahan yahay duco in loo duceeyo isaga iyo intii xanuunkan u jiiftaba waxaynu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay ka kor qaado inagana alle inaga badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed walaalo aniga oo jaaniskan uga faa'iideysanaya waxaan ka codsanayaa qof kasta oo muuqaalka baraha bulshada u adeegsaday waxa aanu si ixtiraam leh dadnimo leh muslimnimo leh Soomaalinimo leh uga codsanaynaa in walaalayaal muuqaalka shalayto baxay walaal ka saartaan idinkoona ixtiraamaya family ahaan ixtiraamaya isaga ixtiraamaya in walaalayaal ka saartaan muuqaalka xanuunkana ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay inta uu jiiftaba uu ka kor qaado inagana alle inaga badbaadiyo anigoo wali doonaya inaan jaaniskan walaal ka faa'iideysto waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed dadka wadankii jooga ha iska ilaaliyeen dhug ha u yeesheen xanuunkan yaan la dhayalsan ilaahayna ha inaga badbaadiyo isagana xaaladiisa caafimaad ee walaal iminka ugu dambeysay way wanaagsan tahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin aan ku daray walaal cabdiqani wixii ugu weynaa ee muuqaalkaas ka baxay oo xambaarsanaa waxay ahayd xaaladda naqaska oo markaa hoos u dhacsanayd xaaladiisa naqaskuna iminka way ka soo reynaysaa waanay wanaagsan tahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay daawadayaal halkaasina wuxuu ahaa fanaanka Maxamuud halwad oo isagu nooga warbixinayay xaaladda caafimaad ee haatan uu ku sugan yahay fanaanka cabdi jaamac caabi cabdiqabuujiye oo muddooyinkii u dambeeyay xaalad caafimaad darro ay la soo diristay